السلام عليكم داود يا كسو دواada seeto kadib magacaygu waa Cabdicasiis Cali Nuur maanta waxaan ka hadlaynaa example la xiriira casharadii aan hore u soo marnay haddaba waxaan ka codsanayaa haddii aad ku cusub tahay channelkeena inaad subscribe dhahdid asxaabtadana aad la sii wadaagtid haddii aad wax ka faa'iiday si ayaguna wax uga faa'iidaan haddii aad hore noola joogtay oo aad subscribe noo aheedna videoga like saar hoosna waxaan ama casharkan waxaa ku jiri doona exercise-kaasna ka soo shaqeey waa haddaa ila socotay casharadii hore commentigana hoos noogu soo qor ansarka su'aalahaas ayna weydiinin haddaba example-ka koowaad waxaana la weydiiyey imise charge ayaa ku jirta 4600 oo electrons 4600 oo electron fiilo ay ku jirto macnaha charge-ga waxaan hore u soo sheegnay ama electron-ka waxaan hore u soo sheegnay ama proton-ka inay ku jiraan fiilooyinka conductors-ka inay ku jiraan ama qof kasta ay ku jiraan ama meel kasta oo jid wax kasta adduunka saaran ay ku jiraan haddaba imise charge ayaa ku jirta 4600 oo electron su'aashu waa saas okay marka waxaan isweydiinaynaa su'aal ah xiriirka ka dhexeeya charge iyo electron hore waxaan u soo sheegnay in halkii electron ama halkii proton uu la mid yahay 1.602 times 10 to the power minus 19 coulomb proton markay tahay positive ay ahayd electron markay tahay negative waay maadaama hadda anaga electron la siiyey sidaas waxaan u isticmaalnay negative marka halkii electron waxaa ku jira negative 1.602 times 10 to the power minus 19 coulomb marka 4600 oo electron imisa ku jirta xiriirka ka dhaxeeya labadoodu waa kan xiriirkana ka dhaxeeya haddii marka halkii electron uu la mid ahay intaan 4600 oo electron waxay la mid tahay 4000 oo lagu dhiftay 4600 oo lagu dhiftay intaan waa anaga saas ku dhifanay ansarkana intaan soo baxay oo ah -7.369 times 10 to the power minus 16 coulomb marka jawaabtu waa intaan answer marka adiga waxaan kuu diray waxaa xisaabisaa imise charge ayaa ku jirta 4 milyan oo proton iska fiiri DNA meesha ku jirta kii hore aan kasoo shaqeynay electron ahay kana proton marka saa u kala saaraysa iyo wixii kala duwanaada sheegay waa hadda casharada hore la socotay okay example-ka labaad wuxuu dhacayaa sida tan waxaa lagu dhahay charge ayaa wuxuu ku jiraa lagu dhahay intaan oo charge ayaa wuxuu ku jirtaa conductor ama terminalna waxaa la dhahaa conductor ay soo gelaysaa macnaha fiilo ay soo gelaysaa fiilo caadi ay soo gelaysaa marka haddii intaan oo charge ay soo gelayso fiilo current-ga fiiladaas maraya imise ayuu la mid yahay waqtiga ay ku qaadanayso hadduu yahay 0.5 second ma faham su'aasha lagu weydiiyo waa intaas marka adiga waxaa lagaa rabaa current ayaa laga rabaa xiriirka ka dhexeeya current hore u soo sheegnay casharka ka horreeyay u soo sheegnay xiriirka ka dhexeeya current iyo time iyo charge waa kana ana current wuxuu la mid yahay change of charge oo loo qaybshay change of time halkan markaan joogno qiimaha charge aan waxaan ku bedelanaynaa q booskeedan qiimahaas la siiyo ku bedelanaynaa okay d sida u soo qaadanay halkan esta ah waa 5 marka 5t sin 4 by t microcoulomb sida u bedeshay loo qaybshay change of time inta markaa maraysid halkan waa meesha problem ka taagan
halkaa markaa maraysid waxaa jirta qaacido calculus ah oo la yiraahdo change of u v change oo loo qaybshay change of time qaacidadana jirta qaacidadan marka waxay la mid tahay derivativeska ama derivationka ama differentiationka u iyo v laba xaraf u kala qaado macnaha laba inay yihiin marka u macnaha markooda waxaa dhahaysaa u ah waxaa ku samaynaysaa differentiation waxaa ku dhifanaysaa v oo aad waxba ka bedelin balaasaa dhahaysaa u sideeda usoo qaadanaysaa haddii intaad differentiation ku samayso ma sideeda hadda usoo qaadanaysaa waxaa ku dhifanaysaa differentiationka v marka kadib jawaabta waa kuintaas hadda sidii oo kale 5t waxay noo taagan tahay booska u sin 4 by t na waxay noo taagan tahay booska v marka maxaan dhahnay u-da differentiation ku samey okay 5t aan haysanaa 5x differentiationkooda maxaa waaye 5 bis waaye soo maa 5 bis waaye marka 5 waa sida usoo qaatay v-na sin 4 by t waa ku dhifto balaasaan dhahay differentiationka of sin 4 by t v intaan soo maa waxay la mid tahay horta 5t sida usoo qaado waa kana 5t sida usoo qaadanaa 5t sida usoo qaado waxaan ku dhifanaa differentiationka sin 4 by t 4 by t marka 4 by horey ku dhacaysaa macnaha 4 by iyada waa tiro caadi camal ay ku dhaqmaysaa horey kusoo dhacaysaa marka 4 haddii 5 lagu dhifto meesha waxaa kasoo baxaysa 20 saasay ku timid bydan waa tan sida loo soo qaatay tdana waa tda ol ay 5 ta wadatay intaas waa fahamsoo maa sinna derivativeskeeda waa cos tanna intaana booska x ay taaganta 4 by t booska x macnaha waxay u dhigantaa sin x na waa cos x intaas waa marka intaan markaas ku soo baxday markii waqtigu uu lamid yahaa lagu dhahay 0.5 meel kastoo t ku jirto waxaa ku bedelanaysaa 0.5 waa kana ahaa markii 0.5 aan ku bedeshay tdan waxaa soo baxday 5ta sideeda usoo laabatay sinta sideeda usoo laabatay laakiin markii inta lagu bedeshay 0.5 waxay u dhigmataa 1/4 1/2 sorry 1/2 ayay u dhigmataa 1/2 4tan u qaybi 2 bisaasay kusoo baxa 2 by plus halkan haddii 1/2 lagu bedesho 10 20 waxaa u qabaysaa 1/2 u qaybi 10 halkan waxaa ka maqan bydaasaan ka tegi bydaas sida usoo laabanaysaa okay costa sida usoo laabatay halkan sida 1/2 aan ku bedeshay 1/2 4 u qaybi waxaa ka soo baxaysa macnaha haddii 1/2 4 lagu dhifto waxaa ka soo baxaysa 2 by kadib intana certificate gelinaysaa jawaabtaas aa kusoo baxaysa ansarku marka waa intaan waa ampere milli ampere hal mar marka inta inaan ka sheega rabaa halkaa markii awal waxay ahayd millicoulomb divided by second soo maaha change of time second lamid ah soo maaha second marka coulomb divided by second wuxuu la mid yahay ampere marka saasa ampere meesha ugu soo baxa milliguna horey u weed ansarku marka saas uu ku noqday milli ampere okay tanaa lagu dira marka adiga waxaa lagu dhahay imisa haddii chargiga soo gelaya terminal uu lamid yahay intaan waqtiguna uu lamid yahay 0.5 imise current laga rabaa ansarku waa kanaha soo saar haddii aan kuu fududeeyo sidii processka hadda maraysaa laakiin hal meel raba inaan ku taabto halkana waxaa ka maqan 2t waa power 2t sorry power 2t waa meeshaas marka intaan raba inaan kuu fududeeyo marka charge ku bedelatay change of charge markuu la mid yahay 10 minus 10
negative 2t intaa marka lagu siiyey et way meeshaan soo maa et marka intaa marka lagu siiyey waxaa dhahaysaa intan waa isu qabanaysaa dhiidaana halkan ay kusoo dhacaysaa intaan isu qabsanaysaa marka waxaa dhahaysaa change haddii derivatives lagu sameeyo tira caadi ah siraa kasoo baxda marka qaybtan hore siray noqonaysaa soo maa waxaa meesha kusoo haraysa change of minus 10 e power minus 2t intaan kasoo baxay soo maa intaan markay derivativeska e power minus 2t waxay la mid tahay minus 2 e power minus 2t intaan la mid marka haddii marka ay intaan la mid tahay 2dan waxay ku dhacaysaa 10tan minustan waa baaba'ayaan marka waxay noqonaysaa 20 e power minus 2t kadib adiga waxaa ku bedelataa timeka ku bedelo timeka markaa ku bedelatid wixii kaga soo baxa jawaabta intaanay kaga soo baxdaa la rabaa intaanay kusoo baxdo kasoo shaqey commentiga kusoo qor waxaa usoo qoraysaa practice problem 1 iyo practice problem 2 answers soo qoraysaa aad ayaan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu